دعوني أنادي قولا دليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dhakhaadku xiran channelkan Axmed Arqudni ku soo dhawaad muuqaal cusub. maanta waxaynu meeshan idinku soo gudbin doonaa program aad iyo aad u cajiib ah. waana program sidoo kale aad ku heli doontid application ahaan ama app kaasi oo aad ku isticmaali kartid Samsung-ka iyo waliba iPhone-ka. sidoo kale aad ka booqan kartid website-kooda. programkan waxaa lagu magacaabaa Duolingo. programka Duolingo waa program laga barto luqada nooca walba ayaad ka baran kartaa luqadaha badankood, balse intaada gelin ka hor wuxuu ku weydiinayaa inaad la gashid website-ka aad ku booqatid email. sidaas darteed waxaad ku dhufanaysaa get started meeshay ku qoran tahay. get started markaad ku dhufatid sidaas darteed wuxuu ku weydiinayaa waxa aad rabtid inaad baratid. haddaba meeshan waxaan kuu sheegayaa in luqadaha aad rabtid in lagu turjumo aad ka dooran kartid luqadahan. yacni hadda waxay ka dhigan tahay luqadahan haddii aad taqaanay mid ka mid ah inaad baran kartid luqadahaasi kale, balse haddii aadan aqoon luqadahan intaan ku qoran waan ka xumaa maadaama uusan ku jirin Soomaali, balse dadka yacni Ingiriiska yaqaana ama Carabiga yaqaana ama Faransiiska yaqaana Talyaaniga waxaad haysataa fursad aad u muhiim ah, taasi oo ah intaan haddii aad taqaanid intaan oo luqadood waxaad baran kartaa luqadahan hoos ku xusan dhammaantood. intaasi oo luqadood waad baran kartaa waliba si aad iyo aad. haddaba aynu dhahno waxaan naqaanaa Ingiriis tusaale ahaan, waxaad ku dhufanaysaa luqadaha rabtid inaad baratid. bal aan ka soo qaadna bal inaan rabno inaan barano Talyaani, waqti yar ayuu qaadanaya. haddaba Talyaaniga markuu qabto waxa uu ku sheegaya yacni waxaad dooranaysaa maalin walba goolka aad leedahay ama yoolka aad leedahay intuu yahay. waxaad rabtaa inaad 5 daqiiqo baratid maalintii, waxaad rabtaa inaad 10 daqiiqo baratid maalintii, waxaad rabtaa inaad baratid 15 daqiiqo maalintii, so waxaad rabtaa 20 daqiiqo inaad baratid. sidoo kale wuxuu ku adsayaa dhinaca bidix casual, regular, serious iyo insane. taasi ayaa ka dhigan yacni markii aad tahay regularka, seriouskana qofka ay dhabta ka tahay inuu barto, insane-kana waa qof dhaafay xadkii loogu talagalay, yacni wuxuu rabaa inuu wax si aad u barto. yacni dadkii seriouska ahaa ayuu kasii gudbayso xadkiisii. bal aan ka dhigano 10 daqiiqo barana maalintii. waxaad ku dhufanaysaa set goal markaad ku dhufatid waxa uu ku weydiinayaa waxaad rabtid inaad kula xiriirisid Facebook mise Google. haddii aad rabtid inaad Facebook aad kula xiriirisid waad kula xiriirin kartaa, haddii kalena Google-ka. bal aan idhahno Google. haddana waxa igu jiray email-kayga, sidaas darteed ayuu igu ogolaaday. haddaba waxa uu ku weydiinayaa 2 su'aalood ayuu ku weydiinayaa taasi oo ah maad ku cusub tahay Talyaaniga, yacni waxaad waxba ka aqoon miyaa mise waxaad ka taqaanaa xoogaa Italian ayaa taqaanaa Talyaaniga. waxaan iska dhahna bal waxba ma naqaan. waxaad ku dhufanaysaa start at the basics. waxa uu ku soo qabanayaa su'aalo ayuu ku weydiinayaa. select for the boy, sawirro ayaa ku dhagan. sidoo kalena waxa uu ku tilmaamayaa waxa uu dhahayo. maadaama anugu hadda aan hadlayo sidaas darteed ma suurtagelaysa inaad maqashid codka, balse wax walba uu hadkaa kugu sheego waa uu ku akhrinayo wax lagu dhaho Talyaaniga. haddaba aynu doorano maadaama aynu qaano sawirka inaan aragnay balan sheeg dhahno waa kaasi waa saxanta ayuu ku yiri. sidaas ayuu kugu sheegaya. haddaba aynu khaladna bal markan si oo ogaano waxa uu ku sheegi doono. gabarta yarta ayaan ku dhufanaynaa check. waa uu ku sheegayaa waa khaldanta ayuu ku leeyahay. waa inaad hal mar kale ku celisid haddii aad rabtid, amaba waxaad ku dhufanaysaa continue maadaama aad khaladay. sidoo kale labadaba waa uu ku sheegayaa. haddii aad ku dhufatid wuu ku sheegaa maadaama aad ku cusub tahay xilligan I am a woman. haddaba aynu bal doorano. okay, keyboard-ka ayaan isticmaalaynaa. waa inaad qortid waxa uu ku leeyahay. xaggan waxaan kugu sheegay ku qor luqadda Ingiriiska maadaama markii hore dooranay Ingiriis, balse sidoo kale haddii aad luqado kala dooratay wuxuu kugu soo qorayaa luqadda aad dooratay. waa aynu khaladnay. haddaba sidaas ayaad uga bixi kartaa. waxaan leenahay hadda skip ayaan iska leenahay maadaama xilligan aan saa ku baray inta hore. Un ragazzo. Io sono un uomo. Io sono uomo. haddaba sidaas ayaan ku dhameynay. yacni waxa uu ku weydiinayaa ereyada meeshaan uu soo qoray. haddii aad maadaama aad ku cusub tahay waxaad ugu saaraysaa calaamada ayaad dul saaraysaa marba midka aad rabtid inaad ogaatid macnaha ay ka dhigan tahay. hadda kan waxay ka dhigan tahay am ama b, tanna waxay ka dhigan tahay tanna waxay ka dhigan tahay man. sidaas darteed waan isku hagaajinay waxaana ka sameynay jumlada Ingiriisi ah. waa aan sahnay. waxa uu ku leeyahay maanta casharkii lagugu talagalay waa aad saxday, waa aana dhamaysay. midda kale aan kuu sheegaya waxa ay tahay su'aasha kama gudbi kartid ama casharka kuma dhamaanayo
ilaa aad ka saxdid su'aalooyinka dhammaantood. taasi oo kaliya haddii aad su'aal khaladid waa uu ka baxayaa, balse markii aad dhammaysid waa uu kugu soo celinayaa ilaa aad ka saxdid su'aashaas. Okay, hadda waxa uu ku leeyahay waxaad doorataa inaad create profile ama wax hadhow dooro. haddii aan dhahno create profile, waxa uu ku weydiinayaa age-kaaga, magacaaga, email-kaaga iyo password-kaaga. haddii aan dhahno create profile later, waxa aad maalintii samaysay. hadda waxaan maraynaa basic. waxaad ku taqi doontaa marka dambe basic 2. phraseska ayaad gaari doontaa, cuntada ayaad gaari doontaa, heerku uu soconayaa ilaa aad ka tagtid meeshan ugu hooseysa. taasi waa politicska iyo inaad spiritual gaartid, yacni meeshan politicska ayaa ugu dambeysa. haddii aad politicska gaadhid waxay ka dhigan tahay waa aad dhammaystay. taasi oo ah inaad soo qaadatay 38 skills amaba xirfado inaad soo baratay oo luuqadan ku saabsan. haddaba waxaan filayaa inaan waxaan kaga faa'iideeyey. midda kale waxaa Amazon ku leedahay yacni casharada la qaadanaya amaba luuqad dadka ku jira qaarkood committee ay soo qoren ayaad meeshan ka ogaan kartaa. sidoo kale laabiska ayaa jira. laabiska waxa uu ku sheegayaa stories ayuu kaaga sheekeynayaa. sidoo kale waxa uu ku sheegayaa eventska dhacaya real life, yacni dad saaxiib dad kale oo ka barta muxuu ahaa meeshan wax ka barta luuqadan ka barta oo waliba Talyaaniga ah tusaale ahaan inuu ku sheegayo meel ay ku kulmayaan oo community ay wax ku bartaan ama mar ay kulmaan oo practice ay sameynayaan uu ku sheegayo. sidoo kale xagan waxa uu ku sheegayaa inaad sidoo kale aad isku dayid inaad dhageysatid si aad wax u fahantid. kullina waxa uu ku sheegay try out taasi oo ah isku day in aad isku waxaysid. intaas ayay ku noqotay casharkeeni maantay. inta ku kulmi doona mowduuca lamida waxaa idinkaga tagay. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.